kulankan ay goobjoog hayeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dalka culimaawidiin aqoon-yahano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulankan oo ujeedkiisu ahaa arrimaha xajka iyo umrada oo dhawaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ee dib u soo nooleysay arrimaha xajka iyo umrada. aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa kol hore isna guddi u saaray sidii xal looga gaari lahaa isqabqabsiga ku aadan arrimaha xajka iyo umrada. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in ay aad u soo dhaweynayaan arrintan ee ku dhaqaaqada wasaaradda diinta iyo awqaafta maadaama dad badan oo Soomaaliya ay dhibaato badan ay ka qabeen arrimaha xajka iyo umrada. xildhibaan Dr. Cabdicasiis Dhagaqool oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in wax badan laga qabtay isqabqabsiga ku aadan arrimaha xajka iyo umrada. oo horeyn sanadkaani waa sanad barakaysan, waxaad ku garanaysaan sanadkan sanad barakaysan inuu yahay waa sanadkii 27 sano ka bacdi ay suuro gashay oo dawladda uu hogaaminayo madaxweynaheena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Allah barakeeyo hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu suuro geliyay in uu la soo wareego barnaamijkii xajka iyo umrada ee u khaaska ahaa Soomaaliya in ay xajka dadka u baxay ay maaragtay fasiliyad ugu samayso iyadoo uu ka dhameeyay riyadii ummadda Soomaaliyeed ee ahayd inay mar arkaan xujayda Soomaaliya oo ajensiyaasha kala badan iyo airline-ta kala goonida ah ay u siman yihiin. waxaad halkaad kaga tusaysaa in uu si toos ah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarihiisa iyagoo socda aysan marna raalli ka ahayn in musuqmaasuq lagu sameeyo xajka iyo arrimihiisa. dhanka kale xildhibaan Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Ibi oo isna kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu mahad celinayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo xukuumadda iyo golaha aqalka sare oo arintan xoog iska saaray. rasuulillah Assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. dhammaan shirkadaha saxaafadda barnaamijka taabagelinta arrimaha wasaaradaha sidii loogu talagalay inay u maraan inuu mataqaana idan aad uga shaqeeyay oo arrinta maanta aan u taaganahay ay batahayba wasaaradda awqaafta iyo diinta oo runtii ku guuleysatay in ay la soo noqoto 27 sano kadib inay la soo noqoto dib u la soo noqoto bicsadii xajka iyo umrada oo gacanta dawladda Soomaaliya dib loogu soo celiyo. waa runtii wax lagu faano waaye, waxay xukuumadda ku faanto waaye, waxay dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku faanto waaye. waan horena u sheegnay waana uga mahad celinaynaa wasaaradda juhdiga ay geliyeen iyo guddigii arrimaha diinta iyo awqaafta loo xil saaray arrimaha xajka in shacbiga Soomaaliyeed iyo dadka runtii loogu yeero dayuuf raxmaan waa martida Allah subxaanahu wa ta'ala. martida ilaahna waa garan kartaa qiimaha iyo qadarinta iyo sumcadda ay ku leeyihiin Ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin. mar haddii martida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo galay dagaal in maanta la soo dhaweeyo laguna soo dhaweeyo dhibkii iyo rafaadkii iyo waxyaabihii ka haysan jiray arrimaha xajka Soomaalida kulligaan aad u naqaano in mataqaanaa la ururiyo oo sanadkan laga dhigo sanadkii koowaad. Cabdikariim Maxamuud Shidan, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland, magaalada Muqdisho.